بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواتي في الله، كلمة أن جعلها قلبتا إنان إذن لو ذاقو مقعذا وحال إلى سديد قضب كبد باذي قويس كاغا. الله وحان ويديسانا يا جل وعلا إنو سديد دا قضب إنو ريرهانا نوغو بدباذيو كبد باذي سديد قضب كبد باذي قويس كاغا. وحان رجوين كقبا قبر والبؤو إدغيسانا يسهد قف كستؤو إدغيسان دونا مرلبات inuu qalin iyo warqad soo qaato, sideedda qodobna uu qaybo, kadibna waa talo qasab idinkuma lihi in la dhaqan geliyo. weliba labadii asbuucba inaad hal qodob gurigaaga aad ku dhaqan geliso. waxaan isleeyahay tajrubadayda iyo aqoonta aan u leeyahay mawduucani haddii la hirgeliyo, midhaha iyo natiijada ka dhalan doonta farxad iyo liibaan iyo sacaado fi dunyaa, tarbiya ay carruurtaadu kaaga daydaan, caafimaad xagga caqliga ah, caafimaad xagga jidhka ah, ammaan lagaa soo ammaano allah xaggiisa subxaanahu wa tacaala, farxad ay ku faraxdo malaa'igtu, cadhaysiin aad ka cadhaysiiso shayaadiinta iyo cid kasta oo ku faraxda burburka qoysaska. intaa waa adduunyada. aakharana rajo waxaan ka qabaa inaad janno isku gashaan adiga iyo zawjkaaga. sideeddaa qodob kuma dheeraan doono, waanse dul istaagi doonaa biidni illaah jalla jalaaluh. qodobka koobaad waa qodobka loo yaqaano attafaahum, labada qof inay ayagu isfahmaan. qodobka in badan baanu ku celcelinnay. sababkaannu ugu celcelinayna waxaa weeye labada qof baa kala caqli duwan, labada qof baa kala maskax iyo maan duwan, labada qof baa kala garaad ah, labada qof baa kala waxbarasho iyo kala tacliin ah, labada qof baa laba bii'o iyo laba meelood ku soo kala kortay, laba dhaqaalo oo kala duwan, laba amni iyo laba qoys oo kala duwan ayaa laga yaabaa inay ku soo kala koreen. reer deggan iyo reer buuq uu ka taagan yahay habeen iyo maalinba ayaa suurtagala inay ku soo kala koreen. agoon aabbaheed dhintay iyo rajay isku darsatay, rajaynimo iyo qof la soo koolkoolin jiray ayaa laga yaabaa inay wax isku darsadeen. isku soo duuduubo labada qof way kala caqli duwanaan karaan, sida oo kale ogow way kala dareen duwanaan karaan. waxaad kalood ogaataa waxa uu kani jecel yahay baa laga yaabaa inuu kani neceb yahay, wuxuu kani neceb yahay baa laga yaabaa inuu kani jecel yahay, wuxuu kani ceeb u arko ayaa laga yaabaa kani inuu ammaan u arko. kani sibuu u lebistaa, qaabna wuu u socdaa. gabadhanna sibay u dhaqantaa, sibayna u lebisataa.
kani sibuu u hadlaa labada qof ee bini aadamka ahee ilaahay wax iskugu daray qodobka koobaad waa inay isfahmaan sideen isku fahmi karnaa qaab camali ah marka haddaan sharaxaa fahamnay kala duwanaanna aanu garannay intaana weliba ay ii dheer tahay shukaansigii hore oo laysu soo habhabeeyey oo laysku soo gebgebleeyey nin walbana inta wanaagsan uu bannaanka soo dhigay inta fiican uu mid walba bannaanka uu soo dhigay ilaa uu midka kale ku qanciyo hadday qurux tahay hadday hadal macaan tahay hadday mustaqbal tahay mid walba midka kale ayuu yidhi haddii ilaahay gacanta ii soo kaageliyo walle farahaagaa dunkan doontaa tiina maskaxday ku jirtaa markii laysu imaadana xaqiiqaa imaani oo dhaqankiibaa imaani oo abaar baa imaani gaajaa imaani colaad baa imaani wallac baa imaani xaamilaa imaani shaqola'aan baa dhici idan xaaladda noocaas ah xeedhada salkeedaa la soo taabanayaa idan gebgebtii hore iyo shukaansigii beenbeenta ahaa waa laga soo tegey irbaddii la isku duray kababyadii way baxday hadda xanuunkii baa imaanaya sidaa daraaddeed bal hadda aan qaab camali ah oo dhaqangelin ah maadaamaan idin qalin iyo buug soo qaata gabadh walbaay iyo nin walba isku day inaan la wada fadhiisto kadibna nin walba qalin iyo warqad uu qaato ii soo qor waxa aad jeceshahay dhammaan ii soo qor waxa aad necab tahay dhammaan ii soo qor waxa aad dhibsato si aan kaaga ilaaliyo ii soo qor waxa aad jeceshahay si aan kuu siiyo waxaan u malaynayaa kelimaadka hadda aan idiin sheegayo culummada kale iska daaye